السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada caawiya janaal iyo barnaamijkii aqoon maal. maanta waxaa idiin soo gudbin doonaa hadduu alla raali ka noqdo cashirkii shanaad ee maadada fisikska gaar ahaan fasalka 12aad cutubkiisa koowaad. cashirkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa tusaalaha saddexaad ee Hooke's law. A load of 50 Newton attached to a spring hanging vertical stretches the spring 5 cm. A load of 50 Newton xamuulaha 50 Newton attached to a spring ayaa waxaa lagu soo xiray moolo hanging vertical taasoo u taalo si joog ahaan stretches the spring 5 cm. xamuulkii marka lagu xiray waxay kala baxday 5 cm. The spring is now placed on horizontal on a table and stretched 11 cm. What force is required to stretch the spring? hadda moolada waxaa laga soo qaaday joog ahaan waxaa loo dhigay qaab jiif ahaan ayadoo la saarayo miis waxayna kala baxday 11 cm. muxuu noqonayaa xooga loo baahan yahay si ay u kala baxdo mooladaasi? A load of 50 Newton attached to a spring hanging vertical stretches the spring 5 cm. xamuul 50 Newton ayaa waxaa lagu soo xiray dhamaadka moolo joog ahaan u taalo waxayna kala baxday 5 cm. The spring is now placed horizontal on a table and stretched 11 cm. What force required to stretch the spring? mooladii hadda joog ahaan u taalo waxaa loo dhigay jiif ahaan waxaana la saaray miis waxayna kala baxday 11 cm. muxuu noqonayaa xooga aan u baahanahay si loo kala bixiyo 11 kaas? givenkeen waxaan haysanaa markaan la siig laba waxa u kala qaadan doonaa laba case oo xaaladda kood waxa ka dhigana waa vertical markaan haysano xamuulku waxaan haysanaa xooga 50 Newton barbaxa displacement waxaan haysanaa 5 cm. marka labaad waxaa loo dhigay jiif ahaan oo horizontal waxaa lagu sii displacement 11 cm waxaan lagu diray xooga F. si aan u shaqeyn waxaan raadi doonaa qaacidada lagu helo force muxuu yahay markaan joogno Hooke's law. force waxay kula mid tahay K oo as spring constants madoorsoomaha moolada oo lagu dhuftay displacement. displacement waxaan haysanay 11 cm laakiin K ma haysan oo as spring constant. haddaba si aan shaqadan inoogu toosto waxaan raadi doonaa marka koowaad K oo as spring constant. K waxaa lagu helaa laba qaacido aan hore u soo baranay. qaacidada koowaad waxay ahayd F oo loo qaybiyo X. qaacidada labaadna waxay ahayd mg oo loo qaybiyo X. maadaama hadda aan maas haysanin K waxaa lagu helaa markaan waa force oo xooga oo loo qaybiyay displacement oo barbaxa ah. haddaan ku noqono marka example-keen waxaa lagu sii force ah 50 Newton. markii xoogu 50 Newton ah displacement wuxuu noqday 5 cm. sidaan naqaan centimeters waa inaan u bedelnaa meter waxaa u qaybinaynaa 100. haddaan u qaybino 100 waxaa noo soo bixi doona 0.05 meter. waxaa soo qaadataa calculator-kaaga 50 Newton waxaa u qaybisaa 0.05. 50 hadii loo qaybiyo 0.05 waxaa noo soo bixi doona 1 Newton per meter oo ama doorsoomaha moolada ay leedahay. 1 Newton per meter markaan dhahan waxaan ka wadnaa waxay mooladaasi kala bixaysaa 1 meter haddii loo isticmaalo awood ah 1 Newton. haddaba haddii aan soo helnay K waxaa noo fudud inaan helno force. markaan waxaa isticmaalnaa qaacidadeena force waxay kula mid tahay K maxaan soo helnay 1 Newton per meter oo lagu dhuftay displacement-gaan muxuu ahaa 11 cm. centimeter markaan meter u bedeleen waa 0.11 meter. haddii dadka qaar waxaa leeyahay ardayda qaar waxaa leeyahay inay isweydiinayaan 5 cm maxaa loo isticmaali waayay? 5 cm markay waxay vertical laakiin 11 cm waa horizontal oo tan noola diray. haddaba waxay noqon doontaa marka meter iyo meter waxay noqon doonaa isla baxeen 0.11 hadaa ku dhufano 1 waxaa noo soo bixi doono 110 Newton. xooga loo baahan yahay moolada si loo kala bixiyo 11 cm wuxuu noqon doonaa 110 Newton. waxaa kaloo sameyn karnaa inaan u shaqeyno maadaama aan naqaano Hooke's law. restoring force is directly proportional to displacement and opposite in direction. maadaama xooga uu saamigal toos uu kala dhaxeeyo barbaxa jihaana iska soo horjeedaan waxaa isticmaali karnaa qaacido xisaabeed oo direct proportionality si loo shaqeeyo jiray dugsiyada dhexe oo ah markaad waxaan haysanay force 50 Newton moolada waxay kala baxday 5 cm. marka ma lagu siin xoogi laakiin waxaa lagu siiyay inay kala baxday 11 cm. waxaan naqaanaa direct proportionality marka laga hadlaayo waxaa la sameyn doonaa 50 Newton waxaa isku dhufanaynaa 11 5 iyo waxaa isku dhufan doonaa force naga maqan oo ah F. haddaan ku dhufano 5 haddaan F ku dhufano waxay noqon doontaa 5F. haddii aan 50 ku dhufano 11 cm waxay noqon doontaa 550.
inta waxaan haysnaa newton iyo centimeter inta waxaan haysnaa centimeter maxay noqonayaan isla baxayaan therefore waxaan noo soo saari doonaa newton si aan u helno force kaligiis meel walba waxa u qaybi doonaa 5 inta waxa u qaybisaa 5 inta waxa u qaybisaa 5 therefore force-gan wuxuu noqon doonaa 110 newton si ay u kala baxdo moolada 11 cm waxa loo baahan yahay 110 newton si ay u kala baxdo 5 cm waxa loo baahan yahay 50 newton aad baad ugu mahadsantiin daawashada casharka aad daabateen si aan noo dhiirigelisaan subscribe saar channelka Caawiya channel si asxaab fara badan u gaarsiisid waxa sameeysaa share aad baad u mahadsantiin